nasrin waxaad tahay qof wanaagsan qof nooceedoo kale dunida ku yaryahay baa tahay qalbigaaga wanaagsan iyo qofnimadaada aadka u sarreysan wax loo dhigi karaa ma jiro umana maleynayo meel walba aan dunida ka tago qof adigoo kale inaan la kulmi doono waxaad tahay xuur cayn ilaahay qurux iyo qiimo u dhameeyey dhagaha codkaaga maqlaa abidkood ku ilaawi maayaan dhaayaha muuqaaga arkaana meel kale ku dogsan maayaan waan ku faraxsanahay inuu qadarkaa la iga dhigay abtiga waanan ku faraxsanahay waqtiga ugu badnaa nolosheena inaan meel kusoo wada qaadano xusuusan abidkii xus doonana wada samayno waxaan doonayaa inaan kuu muujiyo dareenkayga ku aadan kala fogaanteena waan ka xumaa inaan kala fogaanayno waxaanan hubaa un shaki yarigaga jirin inaan ku xiisi doono waxa kaliya oo naftada uga baqanaya nuux yahay inuu xiisaha weydilo inaabti waxaan doonayaa inaan kaaga mahad celiyo wax walba aniga dartay u samaysa kasoo bilow cuntadaadii macaanida 3 waqtiba qolkayga igu keeni jirtay iyo maalin walba biyo saabuun u dhex gashay si aad aniga dharkayga u dhaqdo runtii waa abaal weyn oo abadkii ku hayn doono maalintan awoodiisa yeeshina kuu gudi doono waxaa laga yaabaa maanta inay tahay maalintii koowaad hadalla caynkan oo kale iga maqlaysid iyo cudurdaar taas waxaan kala siminahay ragga Soomaaliyeed ugama mahad celino dumarku wanaagga ay noo sameeyaan laakiin waan ku qasbanaaday maanta inaan kuu sheego wax walba niyadda kugu hayo waxaa laga yaabaa inay tahay chance ugu dambeeyay aan kugu sheegi lahaa waxaana suurtagal inay tahay markii ugu dambeysay aan kulmayno inaabti ma doonayo inaan hortaada taagan aan ilmeeyo nabadgelyo nooli kulante haddii aan noolahay mar kale waan kulmi doonaa maca salaama دخسوا نسون نقن